السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa inaan ka hadlo nin ku jira dowladda Somaliland qayb ka ah oo u dhashay gobolka Sool. waxaan aad iyo aad uga xumahay sida loola dhaqmay, sida loola hadlay ayaan aad iyo aad uga xumahay runtii. meeshii looga talinayay Somaliland, aqalkii looga talinayay, iyada oo shir lagu jiro, iyada oo Somaliland madaxdii ugu sarreysay ay wada hadlayso, ayaa nin ka mid ah xildhibaanada ama maxaan ku dhahay xubnaha sarsare ee Somaliland ee gobolka Sool ka soo jeeda ayaa waxaa loola dhaqmay si aan bili aadanka loola dhaqmin oo loola hadlay. ninkaas sidii gobolkii Sool loo caburinayay dadkooda ayaa dabcan aan u jeednaa in loogu caburinayo meesha ugu sarreysa Somaliland ee laga xukumo, oo ay caburinayaan dad beesha dhexe u dhashay. dad baa ka xigsanaya Somaliland, balse isagu wuxuu isku dayayay inuu Somaliland weli uu qayb ka sii ahaado, balse waa la riixayay, waa la eryayay, lama doonaynin. waayo ninkii ugu sarreeyay, odaygii ugu weynaa ee Somaliland ee Muuse Biixi ku xigay baan dhihi karnaa dowladda Somaliland ee la yiraahdo Saleebaan Gaal, sida uu ula hadlay si wanaagsan ma ahayn. si waxay ahayd dowladnimadu ka fog tahay, si waxay ahayd nin madaxa uusan ula hadlin dad uu ka rabo wanaag, ama uu ka leeyahay weji, ama qof ka tirsan xubin ka ah dowladda Somaliland. si aan loola hadlin baa loola hadlay nin dhalinyaro ah oo xildhibaan ah oo Sool ka soo jeeda. wuxuu leeyahay Saleebaan Gaal, waryaa meesha ka buuqayaa hadlaya. markaasaa la yiri ninbaa wuxuu leeyahay dadkaygii ayaa la dilayaa oo hub lagu xasuuqaya. markaasuu wuxuu leeyahay waryaa calaacalka jooji calaacalka, cid la dila iyo cid la xasuuqaya ma jirto jooji calaacalka. kaagan yaree qaylqayladayow orado aad dhulkaagi u tag reerihiini. hadda waa meeshii laga xukumay Somaliland la sheegayo, waa meeshii ay wada joogeen dadkii lalahaa Somaliland bay wax isku darsadeen oo waxbay wada leeyihiin. ayaa waxaa la leeyahay madaxdii ugu sarreysay ee gobolka Sool ka soo jeeday, waryaa kaagan yaree qaylqayladayow orado aad dhulkiini, annaga ha nagu qaylinine, orod u tag reerihiini. eesh ra'yig, maxaa dhihi kartaan taas? ra'yigiina maxaa ka dhiibanaysaan? maxaa meesha ka cad in aan laga rabin meesha reer Sool, in ay magac u yaal ay meesha u joogeen awalba, inta ku jirtay ee Somaliland la joogtay inaan looga baahnayn Hargeysa iyo Somaliland. orodoo waryaa kaagan yare qaylqaylayayow orodo reerkiini aad. ma wuxuu la hadlayaa dhoocil yar uu amraayo, mise wuxuu la hadlayaa nin dhan oo xubin ka ah dowladda Somaliland? waa wax lala yaabo runtii, waa wax aan la expect garayn karin midaan. laakiin anigu lama yaabayo ninka odayga saa u hadlaaya, sababtoo ah gobolkii Sool baa laga diiday. waa qaraar, qaybta qaraarka wey, qaybta qaraarka. ninkuu ku cara burburayaa, wuxuu ku cara burburayaa xildhibaanka Sool ka soo jeeda. tan kale wuu caburinayaa oo wuxuu leeyahay maxaa meesha anaa kaa leh oo kale ayuu u hadlayaa. meesha anaa u dhashay Hargeysa, anaa xukunka iskale, anaa dowladda iskaleh buu u hadlayaa oo kale. tan kale cara burbur baa jira, uu ku cara burburayaa. waayo reer Sool wuxuu sheegay xataa Saleebaan Gaal in foqa lagu dhuftay dowladdii Somaliland. wuxuu leeyahay dowladdayadii foqaa lagu dhuftay,
waa lala dagaalamay waa laga hor yimi tan kale wuxuu ku leeyahay garaadadiina baa noogu daran waa kusoo indha adag yihiin heshiis baanu ku baaqnay heshiiskii waa diideen buu leeyahay heshiiska lama diidin laakiin garaadadu waxay dhaheen haddaa heshiis naga rabtaan ciidayada dhulkayaga guryahayaga nooga baxa taga dhulkii reer Sheekh Isaxaaq lahaa taga guryihiinni kadib ayaanu heshiinaynaa waanan wada hadlaynaa laakiin inta ciidankiinu ku jiro ciidayada gurigayaga dhulkayaga dadkayagii laynayo ku garaacaya madaafiic waaweyn iyo hubab waaweyn ma wada hadlayno ciidanna aad ku soo guraysaan oon ognahay siraha iyo maxaan ku idhaha aanu helayno ay tahay in aad ciidan soo kordhinaysaan oo ciidan weli kusoo guraysaan kusoo xiraynaysaan guryaha iyaga iyo ciidayada iyo dhulka iyaga marka see u wada hadalnaa weeye wayna gar bay u leeyihiin gar bay idinka joogaan garaadadu sababtoo ah aan wada hadalno waa aan heshiino way ogolaadeen laakiin shuruud bay ku xireen waayo dhulkooda ayagaa iskale dhulkooda ayagaa xukuma dadkooda ayagaa xukuma waxa weeye waa in la maqlo waa madaxii ugu sarreeyay madax meel la taabto oo maxaan ka sarreysaa ma jirto dhulkayga iiga bax markaasaan wada hadlaynaa ceeb ma ahane anoo jooga oo ciidanna kusoo guraayo because waxay yidhaahdeen sirdoonno ayaan dirsanay waxaanu ogaanay in ciidan lagu soo guraayo hor lahoo cusub Somaliland ay kusoo gurayso gobolayada sool sidee marka hubka u dhignaa ma waxaa la rabaa in sacboolayna laga dhigo ma waxaa la rabaa in maxaan ku idhahdaa gamna laga dhigo nala xasuuqo no bay yiraahdeen garbayna u leeyihiin dhulkooda ayagaa leh dadkooda ayagaa xukuma waa madaxii ugu sarreeyay isimada wax ka sarreeya ma jiraan xataa madaxda la sheegaya isimada ka sarreeya waad ogtihiin marka ma ignore garayn kartaan no maxaa isimadii baad ku sheegaysaan inay yihiin argagixiso ceeb wey wax laga xishoodo wey tan kale ninkan ku haray meesha haddaad weji ka rabtaan reer Laascaanood iyo reer Sool ama dhulbahante haddaad weji ka rabtaan ninkaas kaliya idinku haray xataa ma wanaajin weydeen xataa si wanaagsan ma ula hadli weydeen xitaa maxaan ku idhahdaa ii sheeg ma dhagaysan weydeen waxa uu sheegayo waana runtiisa dadkiisii baad la laynaya Somaliland hubkeedii lagu laynayay dawladda uu qaybta ka ahaa dilaysay dadkiisii damiir buu leeyahay qofka inkastoo kaasu damiir lahayn oo weli meesha hadduu fadhiyo damiirba ma lahan dhihi karaa sababto dadkiisii oo la xasuuqaya meesha ma u fadhiyeen cidna ma ogolaateen midaas maybe meeshuu ka bixi la'yahay waa baqaya oo waatan la leeyahay dariiqyada dadkii loo taagan yahay gawaarida lagala degaya ciyaalkii yaryaraay waxbarashada u tagay baaba gawaarida lagala degaa la leeyahay la laynaya oo xabsiyadii ka buuxaa lagu leeyahay oo cidna aan loo aabayeelinay qabiil kasta ah hawiye iyo daarood iyo cid walba ee koonfur ciddi ka timi iyo ciddi Puntland ka timi intaba iyo kuwii jigjiga ka yimi iyo kulli xabsiga la dhigaya marka runtii waa wax laga xumaado madaxda Somaliland aniga waxaan u jeedaa ma rabaan confuse ay noqdeen confuse waxay rabaan iyo wax kale ma kala garanayaan arrintii baa isaga dhabaqday they don't know waxa ay rabaan waxaan leeyahay ninka miskiinka ee meesha lagu caburinayo lagu cambajuujinayo meesha isaga tago waa runoo dadkiisi ha aado ha u tago dadkiisi ha garab istaago dadkiisi ha u tago garaadadiisi ha u tago arxibadiisi dhulkiisi dhulki aan laga lahayn aan laga sheeganayn waryaa dhulkaaga aad aan la oranayn ha tago dhulkiisi dhul wuu leeyahay dhul ilaah baa siiyo waa runa meesha aad ka qaylqayliyaysid waa meel khaladan
waxaad joogtaa meel khaldan xildhibaankow xildhibaanka dhulbahantoo laleeyahay warbax gurigaaga aad meel khaldan ayaa joogta go aad gurigaaga you have to go tag laascaanood tag sool tag dhulkaagi u tag dadkaagi ku bir wax la qaybso ciidaada ayaan ku dhahayn iga kace haddii hargeysa lagu yiri malihid dhul baa ilaahay ku sii tag dhulkaaga difaaco u tag dadkaagi iyo tolkaagi iyo qaraabadaadi iyo waaridiintaadi iyo ciidaadi tag u tag garaadadaadi waa maxay meesha lagu leeyahay orod naga tag bax kaagan yaree qaylqayliyayow tag orodoo gurigiinni aad orodoo dhulkiinni aad maxay tahay waxaas maxay tahay walla iyo bille yaa madaxda somalilan maray qabiilada caayaan maray siyaasiyiinta caayaan iyo hadda waxay taagan tahay mar kuwii xildhibaanada ahaa ay takoorayaan oo caayayaan hadda ka horna waxaan arki jirnay ninkan hadeer ee gar xajiska ah ee ah ciro isagoo feeraya nin dhan oo madaxa oo xildhibaanada iyo madaxda somalilan ku jiro dhulbahanto ah inta la dooday oo la buuqay ayaa feer lagaga soo qaaday afka lagaga jiiday kii dhulbahante marka adinkaa ku quusan waaye midaas waa khalad aad leedihiin raggiinan dhulbahante ee hargeysa aaday dhulkiinu ha idin deeqo dhulbahantow dhulkiinu ha idin deeqo iimaansada dhulkiinu waa qani wallaahi alcadiim somalilan waxay u waalanayso oo rabto waxa way dhulkiina iyo oilka iyo nimcada iyo gaaska ku jiray rabaan adinkoo soo taagan bay rabaan inay idin dhexal wareejiyaan oo wixiina cunaan oo qaataan oo ku noolaadaan idin dowladeeyaan hubna idin samaysteen idin buratunteen oo hore iyo gadaalba idinka fariisteen how possible see u ogolaateen midaas khalad idinka dhacay bay ahayd absolutely wrong aad samayseen ahayd adinkoo dhan oo baa la idin geliyay indhihiinu xaggee jireen caqligiinu xagguu jiri maskaxdiina intay jirtay tukaraq baa la tegi tolkiin iyo harti waa la idinka soo xiray oo tukaraq xaggaasaa la idin fariista hargeysaa waxaa la idinka soo xiray iishag dhankii burcaa la idinka soo xiray dhankii waxaa la idinka soo xiray maxaan ku irahdaa iishag soolka waxaan leeyahay sanaag baa la idinka soo xiray iyo xero warsangeli xaggeedii meel kastaa la idin fariistay adinka dhan oo baa la idin gashay waan u jeednaa say ku dhici karta intaas oo maxaan ku irahdaa markay samaysanayso somalilan intaasoo saldhig oo ciidan ay ku tababaranaysa ama ciidan ay dejinaysa ama xeryo ay ka samaysanaysa i saldhigyo intee jirtiin ma idin fahmin ma idin garan miya how possible aawe cuquushiina dadkiina caqliga lahaa aawe maanta dhibta sidaan idinkuguma ay badateen maanta sidaan la idiima xasuuqeen maanta tan idinkumay dhacdeen in dhulkiinnii qabiil idinla siman ay idinku qabsadaan idin dhahaan qasbe canag ayaa nagu soo raacaysaan sandulle haddii kale waa idin dilaynaa hub idinla dhacaan gurigiina adinkoo jooga ay idinku sheegaan argagixiso inaad tihiin caayaan cuqaashiinni waa waxa adinka isu geysateen sorry aad baa uga xumaay dadka dhintay allah u naxariisto jannatu firdowsana allaha geeyey xaq bay ku dhinteen dhulkooda iyo diintooda iyo sharaftooda iyo magacooda iyo cirdigooda ayagoo difaacanaya runtii laakiin xaq darrada dadka wada waa laga guuleysanaya sida haddaba uu u yiri saleebaangaal uu caddeeyey uusan qarin odaygii ugu weynaa uusan qarin uu yiri afka fuqana lagu dhufta iyo afka marka insha allah khayr mar dambana ha laga fiirsado soomaaliyey
adinka isu wada guuxaya oo cuqdad isu wada qaba oo hub isu tunta oo hub isu urursada subxaanallah waa ka haddi waxay qabeenba maanta soo yiri islaam weyn baa arkay xataa oo xildhibaanad la leeyahayo caayaysa maxaan ku idhahdaa wiilkii yaraa dhahaysa xataa qabiilkiisa ka saaraysa iyo abtirsinyihiisa iyo reerkiisa dhulbahantaba ka saarayso dhahayso waa barwaani weeye ma aha dhulbahanto ma aha muxuu sameeyey wax uu sameeyey male wuxuu yidhi dadka aad dilaysaan laynaysaan joojiya maceeba waa wax cad oo loo wada jeedo adduunkao dhan u jeedo ummadda islaamkao dhan u jeedo soomaaliyao dhan u jeedo wax qarsoon aan ahayn buu ka hadlay daalac baaba loo raacayaaba cajiib waa ummad aan ka yaaba ummaddan wallaahi hadda jirta subxaan allah ma jiran yihiin majaaniin miya waa maxay waxay samaynayaan inay khalad yihiin ma garanayaan miya wax isqabanaya ma leh miya wax caqli leh oo waxaan joojiya wax fiican ma aha dhahaya male miya I don't understand horaan salaamaya ilaahay ha kala qaboojiyo dadka xaqana ilaahay ha u heliyo insha allah bidmillahi kariim wuu u helinayaa ilaahay waa xaq soore cidna maxaan ku idhahdaa xaq kama galo